بسم الله الرحمن الرحيم dhamaan ardayda dadweynaha Soomaaliyeed meel walba adduunka ay ka joogaan waxay noo socday weli barashadii casharada Microsoft PowerPoint anaga horey u soo qaadanay majmuucada la isku yiraahdo Office waxay u kala sectionadii kala duwanaa Word Excel iyo Access baan horey u soo qaadanay buugga afraad waxaan sii maraynaa Microsoft Access iyo practically casharada ay noo socdaan weli marka dhamaan waxaan laga soo xiriiri karnaa direct number Gmail Yahoo iyo waliba fiber-ka idinka nagala soo xiriiri kara sidaa darteed marka cashirkeena ayaan soo gudgalayaa oo member-tigeena ayaa imaanaya IT certification video training waa barashada direct number waa marjaca u noqon lahayn cashiradeeni marka cashirkeeni maanta xaguu ka sii bilaaban doonaa oo aan ku qaadanay Microsoft PowerPoint marka sectionski kala duwanaa sectionka ugu dambeeyay office management waan sii maraynaa marka waxaan soo gudgalayaa programkeygii PowerPoint waa kana marka waxaan ka bilaabayaa meel ebera si aad si fiican ugu barataan slides-yada kala duwan home baa imaanaya waxaan imaanayaa layout waxaan imaanayaa marka waxaan qaadanayaa blankigii ugu dambeeyay waxaan soo baranay blankiyadan pictures iyo la soo gelin karaa waxyaabo kala duwan baa la soo gelin karaa marka waan baranay sectionskan aad baan u fahanay cashiro kala duwan baan ku qaadanay cashirkeena ugu dambeeyay marka waxaan ka dhiganaynaa blank meel ebera inaan ka bilaawno very good kan anaga laga rabaa inaan u sameeyno xariijimihii uu lahaa inaan u sameeyno ayaa laga rabaa oo ahaa macnaha slide baa la yiraahdaa kan kaliis markuu saan yahay waraaq walbo halkaan imaanayso waa slide marka slides baa la isku dhahaa marka kan inaan sameeyno anaga aan asaasana la rabaa kuwa hore waa naloo soo diyaariyay marka kuwa naloo soo diyaariyay waan aragnay kuwaan anagu diyaarsan lahayn inaan aragnaa waana muhiim jiddan taas marka kan soo diyaarinayna anaga waa soo furaynaa text box waxaan u sameynaynaa meeshii aan ciwaan ka dhigi lahayn waana muhiim jiddan tan in anaga sameyn karno kuwa horay way noo diyaarsanaayeen dad baa soo diyaariyay nimanka programkan office soo sameeyay oo programkan soo qoray ayaa soo diyaariyay okay good ka anaga diyaarsan lahayn marka waa kana good halkan buu ciwaankeena noo noqonaya anaga kan bilow ilaa dhamaad diyaarsan doono marka aan formattingkii baan tagayaa ila soco saan u quruxsan lahayn ama farta saan u bedeli lahaa ila soco farta taar rabaan ka dhigayaa markaan horta ugu horeysa fartaan weynaysanaynaa oo numberska farta ayaa waxaan ka dhigaynaa 44 waana weynaystay waa kana marka kaan anaga samaysanay soo bilowday ilaa hadda aan wadno ayaan arkaynaa marka farta colorkeedii iyo waxeedii dhan baan bedelayaa in naqshada aan farta ka rabo farta saasan ka rabaa qayb baan farta u qurxsan doonaa ana muhiim jiddan taasi inaa wada arki kartaan ardayda inay step by step u sameyn karaan baan rabaa cashiradan oo kala duwan ay aad iyo aad u fahmi karaan oo ayaga ay gacantooda ka sameeyaan baan rabaa marka waa ka quruxsiga la quruxsanayo iyo naqshada la sameysanayo oo min bilow laga soo bilaabayo ilaa dhamaad la sameysanayo anaga sameysanayn mana loo sameynayo office-ka wuxuu soo diyaariyay ma isticmaalayno another option waa anaga inaan sameysana marka farteenan waa tii bilowga ahayd insert baan tagayaa text box waxaan sameysanayaa meeshaan ku qori lahayn qodobada aan rabno inaan ka hadalno marka waxaan soo furanayaa insert baan weli tagayaa oo dartski baan la imaanayaa farta taan rabaan qaadanayaa waa inay ila socotaan step by step cashirka marka halkaas aan rabaa inaan ku qorto far inaan halka ku qortaan rabaa marka tan waa inaan iska wada tirtiraa marka waa kana halkan si fiican fiirso waxaan doonayaa inaan presentationkeena ama bandhigeena af Soomaali baan ku qoranaynaa bandhigeena kaga hadalno marka kan haddii aan rabo waxaan keensanayaa dhexda marka inaan kaga hadalno dhamaan dadweynaha Soomaaliyeed oo kale bal waa ka annaga sameysanay saasaan u qoran marka programka oo aan slides kala hadaan kusoo darsanayno oo annaga oo aan diyaarin doono oo naloo diyaarinayno waa kan annaga design waa u sameysan karaa dabcan designkeyga waxaan dhihi karaa kuwaan mid kamid aan dooran karaa saan iga dhig
designadii saasaa laga dhigay. Okay good, design oo samaystay kan anaga soo qornay soo diyaarinay u sameynay shaxdii lagu diyaarin lahaa kan anaga sameynayna marka soo design-kii leh la soco marka soo design-kii leh baan sameynaynaa iska ilaali cashirkan waa muhiim jiddan aragti gooni waa inaad samaystaa waa soo gashanayaa marka xariijintii baan soo gashtay waxaan leeyahay qaybta waa kala dudubayaa farta qaybta afka Soomaaliga afka Soomaaliga oo anaga waxaan dhignaa English iyo computer waxaan kaloo dhignaa qaybta af Soomaaliga anaga cashar af Soomaaliga oo bixinaa. Okay good, formatting baan tagayaa ila soo farta horta marka hore lambarkeedan weyneysanaynaa oo home haddii intuu nagu siin waayo waa weyneysanaynaa 44 baan ka dhiganaynaa farteena waxaan rabnaa inaan afarta waa doorashada muhiim soo dima dhiin doorashada waa very important waa doortay doorashada waa highlight isaar af Soomaali waa doorasho highlight isaar haddaan maqasho waa dooro af Soomaaliga maxay noqonaysaa marka af Soomaali markaan rabno dooro bay noqonaysaa af Soomaali af Soomaali waxay ku noqonaysaa adi dooro marka dooratid baa ka hadli kartaa okay haddii kan uu kugu yiri weyneyso asaa weyneysanaysaa marka formatting tag farta waa kuwan ka doontid qaado aka haddaad qaybtaan waa ka bedeleynaa waxaan ka dhigaynaa fiirso si fiican indhaha uu qabo qaybtaas jaalla ka dhig marka waa kasii bedeli karnaa farta annagoo qayb ka dhigi karna tan hadda qaybtaan waa bedelnay qaybtaan afkana waa bedeleynaa waxaan ka dhigaynaa group baan ka dhigaynaa haddaan rabno waa kan marka muhiimadda ay leedahay haddii aad aragtaan ha ku wareerinaa waa simple fudud weeye idinkaa la karaa inaad qaabeyn kartaan waana muhiim jiddan taas marka insert baa mar walba tagayaa text baan soo qaadanayaa marka muuskayga isbedel ayaan saa ka dhigayaa ku qorayaa waxaan rabaa afka Soomaaliga waxaa la qoray 1970 aksaasa u qoranaysaa waana dooranaysaa oo weyneysanaysaa inta soo kaliya marka waa muhiim jiddan taasi oo barashada casharadii aan ku qaadanaynay Microsoft PowerPoint oo ahaa presentation inaan qori karno annagana aan diyaarin karno waa dhammaan ardayda iyo dadweynaha jecel casharadan ayaa la hadlayaa waana muhiim jiddan taasi inay wada bartaan ay ku wada faa'iideystaan ayna fahmi karaan sida loo quruxsado sida loogu samaysto farta si qurux badan sida loo dhigto marka muhiimadda doorashada way computerka cilmiga computeradka muhiimadiisa waa formatting inaad si fiican u samayn kartaan oo aad iyo aad u taqaanaan waa taas waa asal bay noqonaysaa haddii kale formatting aad ku fiicneen ma ka shaqayn kartid programyada si fiican uguma shaqayn kartid oo bandhigyada ah marka slideshow baa ku xiran kartaa waa ka dooranaysaa oo kaliya emission kuwan kaarta kaga xiran haddaad rabin kuwan imo emission imo custom emission imo halkan add effect ku xir add effect ku sii xiraysaa marka barashada casharada oo aan ku baranayno Somali Star Online Training waa ka soo gabagabeynaynaa casharadeen ugu dambeeyay ku guul jirnaa oo ahaa inaan ku qaadanayno Microsoft PowerPoint anagoo casharo kala duwan sectionski kala duwan office-ka hore u soo qaadanay marka dhammaan ardayda dadweynaha Soomaaliyeed Somali Star Online Training ku soo dhawaada contact marka direct number gmail iyo waan injineer Maxamed Xamid Bari casharadiisa taxanaha sidaa darteed waxaan leeyahay wassalaamu calaykum waraxmatullaah wa barakaatuh